gelinkii dambe shalay ayay ahayd markii gegiga diyaaradaha Heathrow International Airport ay ka soo degeen Mujaahid Ibrahim Cabdullaahi Xuseen Dhagaweyne iyo ganacsade Maxamed Musbaar kuwaas oo halkaasi si heersar ah ugu soo dhaweeyeen qaar ka mid ah jahliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddankan UK. xubnahan ayaa sheegay in socdaalkoodani la xiriiro martiqaad ay jahliyada reer Soomaaliland u samaysay oo ku saabsan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen 20 guurada ka soo wareegtay xuska maalinta qarannimada Soomaaliland. xubnahaas oo ka hadlaya socdaalkoodana waxay yiraahdeen dhammaan waxaan u mahadnaqaynaa jahliyada Soomaaliland ee soo dhaweysay marwo iyo mudanayaalba waxa leenahay waa mahadsantihiin macsuumadii aan ugu yeedhan iyo soo dhaweynta aan nagu soo dhaweysan Heathrow Airport waanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu u mahadnaqaynaa mudanayaashii marwoonka rag iyo dumar wixii jaaliyada reer Soomaaliland casuumadeena casuumeen iyo soo dhaweynteena soo dhaweeyeen baanu u mahadnaqaynaa iyo kuwiinada Her Majesty the Queen of the Heaven and the Earth iyaduna oo baxay tiiba ayaanu u mahadnaqaynaa. bismillahir rahmaanir rahiim sidaa waxaa Musbaar sheegay dhammaan waxaanu u mahadnaqaynaa jaaliyada Soomaaliland ee nagu casuumtay 20 guuradan iyagoo mar walba ka daawan jiray ama cajalado ama telefishinka siday u xusaan ama u weyneeyaan qarannimadooda iyo dabaaldega u sameeyaan waxaanu idinku mahadnaqaynaa inaad ugu macsuumteen inaanu idinkala qayb galno oonu idinla weyneyno xuska oonu maalintaa weyn iyadana hawshaa idinla galno ee 20 guurada ah xuska inaanu idinla joogno oo idinla dabaaldegno waa mahadsantihiin dhammaantiin marwo iyo mudanayaal. Mujaahid Dhagaweyne iyo ganacsade Maxamed Musbaar ayaa la filayaa inta ay joogaan inay kulamo la qaadan doonaan jahliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan waddankan Ingiriiska. Maxamed Tiriig, Home Cable TV, London.